ganacsigaas muddada badan aan kusoo jirnay awgeed waxaan qaadanay kelmadda ah in uu loo baahan yahay dalkeenna oo aan dalkeenna kula soo noqono maalgelintii aan dalalka kale aan geynaynay. waxaan rabaa inaan idinku hambaleeyo inaad suuqa shaqo abuurista Soomaaliyeed ama waxa la dhahaa employment-ga inaad rol ku leedihiin oo aad dad shaqaalaysan doontaan. waxaan rabaa inaan idinku hambaleeyo idinkana mahad celiyo inaad dhaqaale horumarinta Soomaaliya ama waxa la dhaho luqadda qalaad economic development inaad kaalin ku yeelan doontaan. aan rabaa idinka mahad celiyo. waxaan idinka rabnaa inaad horumarisiin deegaanada muxuu ahaayeen xoolaha iyo beeraha caanka ah. waxaan ognahay oo wada xasuusannahay dadka Amaana soo aasaasay ay khibrad u leeyihiin bangiyada caalamka kuwa muxuu ahaay ku tiirsan beeraha iyo xoolaha waa kuwa adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh ee ugu faa'iidada badan. waxaa xawaalada Amaana waa xawaalad weligay aan isticmaali jirin aad baan maaragtay sida qaas ahaan Denmark Copenhagen gabadheeda joogto Amaanaan isticmaali jirnay weligeen. marka maanta inay bangi Amaana la furay aad baa ugu mahadinayaa. bangiyada Soomaaliyeed oo ay Amaano ku jirto waxay ka soo bilaabeen xawaalado. runtii xawaaladuhu sida loo sheegay meeshay ka soo bilaabeen dhibaataday ku soo shaqeeyeen iyo horumarka maanta ay gaareen waxba dib ugu noqon maayo.